arkaysaan waxaan u yeedhay maanta maareeyihii wakaaladda biyaha Hargeysa oo dhibaatada waa noloshii bilaadanka weeyaan biyuhu bariyahana biyihii horena way yaraadeen biyihii dambe mashaariicdii dambana weli waddanka may soo gelin magaalada markaa waxaynu u baahanay bal inaynu xog waran ka helno halkii wax marayaan iyo mashruuc isna xaggan bariga lagu sheegayo istagana wax dhaqdhaqaaq ah aynaan ka maqaliyo bal inuu warbixin inaga siiyo maareeyo xaaladii biyuhu halkay marayso sababtaynu ugu yeedhayna waa sidaa qodada saxaafadda haddii aad tihiin sidaa markii horeba maqliseen waxaanu guddida joogta ahaan u baahanay inaanu ogaano mashruucan biyaha ee beryahanba socday annagoo ogdee baahida loo qabayo dhibaatada dalka haysta bal inaanu xoogaal u noqonno oonu u yeedhanno maareeyaha iyo baadadkiisa la socda ujeeddadeedana waxaa inaanu ogaano bal mashruucii intu soo jira iyo inta u hadha iyo bal waktiga waa daruurigii nafta ummadda inaanu ogaano aanu ugu yeedhannay ilaahay mahadii iyagoo mahadsan way noo yimaadeen wayna soo ajiibeen xaaladii mashruuca halku marayana way nooga warrameen qodob bay nooga warrameen su'aalihii la weydiiyena si fiican bay uga wada jawaabeen wayna qanciyeen waxaana noo caddaatay oo inoo caddeeyeen in biyihii ay si dhaqso ah sanadka 17 horraantiisa u horeysa inay magaalada cabayso ayay noogu bushaareeyeen inay u yeedhaan wixii su'aalaha u baahan yihiin weydiiyaan wixii hawlaha gacanta lagu hayo xoogaal u noqdaan sida hawluhu u socdaan sidaynu wada ogsoonnahay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa muddadii aynu qaranka ahayn dhowr 20 sano ahayd dhibaato weyn xagga biyaha ka taagneyd nasiib wanaag waxaa socda mashruuc weyn oo mashruuca biyo balaarinta caasimadda Hargeysa la yiraahdo oo mashruuc loo qaybiyo mashruuca biyo soo saarka iyo mashruuca biyo qaybinta mashruuca biyo soo saarka oo ay iskugu tageen labada qaaran bixiye ee midowga Yurub iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo in muddo ah socday hawshiisu gabagaba ku dhowdahay oo badi hawshiisi ay dhamaatay taas xildhibaanadu nagu inaan warbixin dheer ka siino warbixin faahfaahsan baan ka siinay oo aad u ballaaran mashruucu ilaa imika halku marayo waxaa noo qabsoomay waxyaalaha qorshuhu yahay ilaa imika maxaa qabsoomay maxaa dhamaaday halku hawshu maraysaa warbixin waafiyan ka siinay waxaa kaloo jira isagoo mashruuc la yiraahdo mashruuca biyo qaybinta oo isagana lacag soo bixisay baanka horumarinta oo qabarsan Jarmalka ee la yiraahdo KfW oo isagana hawshiisu imika dhawaan bilaabmi doonto kaana warbixin baan ka siinay waxaan ku casuunay xildhibaanada guddiga joogtada golaha guurtida inay hawsha mashruuca nala soo eegaan sida hawshu u socoto ilaa imika waxa qabsoomay iyo hawsha halka maraysa nala soo eegaan insha Allah si degdeg ah wiigan soo socda ama kan bilaabmay dabiiqad ama wiigan soo socda aynu maalin isla eegi doonaa mashruuca soo eegaan ka muhiimad waxa ay waraysi oo u siiyay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka waddanka u yaala inay xoogaal u noqdaan hawsha soo socoto aadna waan ugu mahadnaqaynaa ka saxaafad ahaana aad baan idinka mahadnaqaynaa joogitaanka nala joogteen waxaanu jecelahay waa mashruuc weyn baan gacanta ku haynaa dhammaanteen golaha guurtida wakaaladda biyaha iyo saxaafaddaba ilaahay waxaan ku baryaynaa in hawshan ugu guuleeyo aadna wad mahadsantiin